salaamullaahi calaykum meel walbaad f b kasoo gashaan halkaad nagala socotaan waa raadiyo xashka oo aad ka dhagaysan kartaan mawjadaha dhirarkoodu yahay skype twitter whatsapp iminkii haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamij ku saabsan gabdhaha soomaaliyeed iyo shiishada maxaa kala haysta. barnaamijka waxaa igala qeyb qaadanaya caasho faarax iyo weliba sheekh xuseen. aan ku bilaabo caasho faarax oo ka hadlaysa dhibaatada ku kaliftay shiishada. dhibaatada ugu kaliftana shiishada sidaa ogtahay waxaa loo soo saaray dumarka maseyrsan. miisaanka jirkayga waxba iskama dhimo, ambateedkana way ii furtaa. markaan soo kaca mar walba maskaxda markaana cabin waxaan dareemaa inaa madax xanuun iyo welwel, markaan cabo stresska iyo madax xanuunka iga baaba'ay. waxaa kaloo qadka si toos ugu jira sheekh xuseen axmed. sheekh xuseen ma noo sheegi kartaa dhibaatada ay leedahay shiishada? waa lagu buurinayaa ama kan lowyaha weynaada, lugaha dhuubta, baridaa yaraata, naasaha weynaada. kaasna wuxuu ahaa sheekh xuseen oo ka hadlayay dhibaatada ay leedahay shiishada. waatanaa mar kale caasho. samaysantahay dhowr siyaabood, waa dhowr nooc u kala qaybsan tahay. double apple, minti, grape iyo orange. waa kala qof walba mid ayuu cabaa. dadka hadda u badan caasha ma noo sheegi kartaa jawi qaabkee baad galaysaa markaad shiishada cabto? waa nagu fogeynaya jawi macaan aa ku jirtaa oo aad u macaan, oo shimbiraha la duuleysaa. jawi fiicana galaysaa, adiga dhan farxad iyo haddi ay ku siinaysaa. xidigaha tirinaysaa, habeenkaas dhan farxad ayaa ku jirta. taasna waxay ahayd caasho oo xidigaha tirinaysa. halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii iguna talagalnay maxaa kala haysta gabdhaha soomaaliyeed iyo shiishada. barnaamijka waxaa igala qeyb qaatay caasho faarax iyo weliba sheekh xuseen. waa anigoo ah marax booy. tani intaan kulmi doono barnaamijka xiga waxaan iga tagaynaa salaamullaahi calaykum, nabaadiina meel walbaad f b kasoo gashaan. Trying to be strong, but the strength I have is washing away. It won't be long.